way safiirka dalka isu toga imaaraadka carabta Soomaaliland fadhiya baa shacawil mudane maanta dareenkaaga labadii gole fadhiga wada jirka mudane madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland uu fadhiyay khudbada u jeediyay kadib cod aqlabiyada golo ku meel mariyeen heshiiskii dareenkaaga ka waran maanta iyo hawsha wad mahadsantahay Khadar Cakule marka hore waxaan mahad celinayaa shaqaalaha TV-ga iyo wasiirka warfaafinta oo runtii barnaamijkan iyo ka hadalkiisa si fiican ugu soo bandhigay mujtamaca reer Soomaaliland sida aad sheegtay maanta wuxuu madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland hortiga labada gole oo shirka aan caadi ahayn isugu yeeray ujeedada shirka la isugu yeerayna waxay runtii daarnayd in madaxweynuhu soo bandhigo codsi ka yimi dowladda Imaaraadka Carabta codsigaas oo ahaa in la siiyo saldhig military magaalada Berbera airportka Berbera shirka maanta aan caadiga ahayn madaxweynuhu khudbadii uu ka jeediyay waxba kaga noqon maayo waa wada dhageysateen waxaan runtii u mahad celinayaa xildhibaanadii labada gole ee baarlamaanka iyo guurtida sida xilkaasnimada leh wadaniyada leh karaamada leh ugu codeeyay heshiiskan u dhageystay khudbadii madaxweynaha iyo codsigiisii iyagoo tixgelinaya dareenka iyo maslaxadda aynu leenahay dalka walaalaha aynu nahay ee Imaaraadka iyagoo dareynaya horumarka ballaaran ee Jamhuuriyadda Soomaaliland gaadhay muddooyinkii ugu dambeeyay iyadoo soo dhaweynaya mashaariicdii maalgashi ee shirkadda DP World iyagoo waxaasoo dhan tixgelinaya waxay runtii mudan yihiin in loo mahad celiyo aad iyo aad ayaan ugu mahad celinaynaa waxaan kaloo mahad celinaynaa shacabka reer Soomaaliland ee sida wanaagsan u soo dhaweeyay qalbiga furan dabcan markastoo barnaamijyo caynkan oo kala yimaadaan way dhacdaa in fikradaha la isku weydaarsado dad dhinac kale dee wax ka eegaya ama si kale wax u fasiraya way dhici kartaa waa la doodaa laakiin waxa dhaqan inoo ah haddaynu nahay shacabka reer Soomaaliland inaynu mar walba markaynu doodno isqancino oo waxa xalku yahay ee dantu tahay la raaco wixii dantu iyo maslaxadu ku jirto in cidna loo habrado ama cid loo joojiyo mamudna marka runtii aad iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa xildhibaanada labada gole iyo shacabka iyo ummadda maantana runtii waxaan oran karaa Soomaaliland waxa uu soo kordhay saaxiibka labaad waayo saaxiibo hore weyn loo hayay dowladda Itoobiya runtii xiriir fiican naga dhaxeeyay dabcan maanta xiriirkan iyo inagoo horena ogeyn in dowladda Imaaraadku maalgashi samaysay maanta xiriirka military aynu siinay heshiiskan wuxuu sameynayaa mid inagana maslaxadeennii iyo danaheennii ay inoo fududeeya iyagana ay helaan dowlad kale oo saaxiib la ah oo iyaguna iskaashadaan oo mandaqadan iyo wixii iyaguna markaa ay uga baahan yihiin sameeyaan marka aad iyo aad ayaanu faraxsanahay hadaanu nahay anigu safiirkii gaar ahaan u joogay Soomaaliland dalka Imaaraadka insha Allah waxaan rajaynaynaa mustaqbalka soo socda in waxyaabo badan oo kala wanaagsan aan ka shaqeyno haddii la idmo saad safiira su'aasha ugu dambaysa ku weydiinayo tusaale ahaan dowladda Axmed Maxamed Siilaani ka hor dalalka Carabta gadoon bay Soomaaliland ka ahayd dadka shacabkuna waxay oran jireen xiriirkii soo jireen ee ganacsi ee Carabta la lahaa wuxuu u baahan yahay boorka laga jafo la soo kiciyo mar kale sidoo u aragtaa inaad adiguna noqoto safiirkii ugu horeeyay maantana ay muuqdaan mashaariic midho dhala oo dowladaha Carabta gaar ahaan Imaaraadku ay gacanta Soomaaliland horumarkeeda iyo dhinaca gargaarka ka geysanayaan Khadar waad saxsantahay oo runtii intii xukuumadda Axmed Maxamuud Siilaani timi waxay xoog weyn saartay inay aynu sameeyno aynu soo dhawaano dowladaha Carbeed ee walaalaha nahay dabcan Soomaaliland markii hore xiriidho ee wadamada jaarka ah iyo kuwa reer galbeedka ah waynu lahayn saaxiibo waynu lahayn laakiin waxaad oran karaysaa runtii xiriidhada xagga Carabtu way hayeen kuwa aanay sidii lagu habboonayd inay nagu hawlgelin marka tiraba waxaynu ogeyn intii imka safar ee haday noqoto dalka Imaaraadka iyo Kuwait oo madaxweynuhu ku tagay ujeedada weyn waxay daarnayd inaynu mar walba kiiskeena iyo barnaamijkeena iyo ahmiyadeena iyo dareenka shacabka reer Soomaaliland u soo bandhigno dalkan walaalaha nahay waxaad oran kartaa runtii maanta markaad eegto muddada 7 sano ee dowladdu jirtay marka la eego safarkii ugu horeeyay madaxweynuhu ku tagay dalka Imaaraadka iyo maanta farqi weyn baa u dhaxeeya waxaad oran kartaa runtii dowladda Imaaraadku maanta sidii loo macaamisho dowladda Soomaaliland waxa kama duwana sidii loo macaamisho dowladaha kale marka madaxweynaha ay la kulmaan waxa ay siiyaan full protocol waxa uu la kulmaa madaxweynuhu head of state ka ugu sareeya dalka Imaaraadka Sheikh Mohammed bin Zayed iyo Sheikh Khalifa bin Zayed
waxa ay siiyaan runtii wax kasta oo iyo karaamo kasta oo ay siiyaan maamuus oo ay siiyaan madaxda kale taasina iskagama iman fududayn iyo hawl yar kama iman runtii dadaal ay dowladda iyo shacabka reer Somaliland galeen wixii ay qabsadeen muddada 25 sanadood dimuqraadiyaddii horumarkii nabadda ay sameeyeen ayaad moodaa in dowladda Imaaraadku markii ay aragtay ay qiimeysay inay imika bilowday waji ka duwan wajigii hore ula macaamili jirtay maalin walba saaxiib baa la samaystaa maanta Somaliland waxa ay haysataa saaxiib ay ku tashan karto oo ay ku tiirsan karto runtiina waxaan ugu hambalyeynaya hawsha fikirka iyo talada wanaagsan ee hogaamiyaheena Axmed Maxamed Maxamuud Siinaay inuu hogaamiyay wadaran karto midho dalkeeda maanta haysanaa ugu dambeyn safiir haddana maanta dhan ka dhamaada muhiimadda dalalka carabta lagama dhamaan karo laakiin ugu dambeyn angal kale ama dhinac kale ka yareegno marka la eego Somaliland markii hore nabadeyn iyo hubka dhigis bay soo bilowday axdi beeleed iyo axdi qarameed baa lagu soo dhaqmay muddo 15 sanadood hanaan dimuqraadiya lagu dhaqmayay ma moodaa inay imika hayaanka u rarnay halgankii horumarka mashaariicda maalgashiga caalamiga runtii waad oran kartaa waayo mar walba Somaliland marxaladii stage bay maraysay markii xornimada qaadanay waxaynu bilownay inaynu dowladnimadeennii iyo heshiisiin bilowno inaynu dadkii hubka dhigis lagu sameeyo in horta la adkaysto nabadgelyadii aynu haysanay marxalada adag baynu soo marnay oo kala duwan marxaladahaasi waxaynu kaga soo gudubnay isku duubnay iyo mar walba shacabka oo door bidayay inay dalka iyo dadkan iyo wixii ay haysteen ay ku adkaystaan waxa aynu marnay marxalado markii dambena aynu shuruuc iyo qawaaniin aynu ku kala shaqeyno dalkeena oo inoo noqda kuwa saldhig iyo maaragtay inoo sameeya yeelano arrimahaasi runtii waxay mar walba stageka Somaliland soo maraysay aad oranaysay marxalado mar walba aynu kaga gudbaynay inagoo isku duuban marxaladaha markii adkaaynu kasoo gudubnay maanta waxaynu maraynaa marxalad ka duwantii waxaynu u baahanahay marxalad inaynu waddanka investment keeno waxaad la socotaa 25 sano ay Somaliland ictiraaf raadinaysay ictiraafku siyaabo badan buu ku yimaadaa mid political jira iyo mid economic waxaad runtii oran kartaa maanta ictiraaf economic ay Somaliland heshay hore heshiisyo shidaal bay Somaliland u gashay oo dowladda shirkado waaweyn la gashay laakiin may dhicin in shirkado waaweyn oo iyaguna xagga development-ka ama infrastructure-ka noqotay ay Somaliland la gasho marka shirkadda DP World oo ay leedahay dowladda Imaaraadka gaar ahaan Dubai government waxaad oran kartaa maalgashigan 442 milyan ay iminka ku ballaarinayso dekadu inuu Somaliland ka furay xarigii ahaa waa dal aan la ictiraafsanayn oo lama maalgashan karo maanta markaad eegto xafiiska Somaliland dowladda Imaaraadka runtii shirkaduhu way yimaadaan dowladdu way eegaan waxaa noo yimaadeen oo soo wadamo iyaguna xiiseynaya maalgashigan oo maqlay hawshan ka socotay DP World ay samaysay investmentka waxaa markaad oran kartaa maalgashigan ay Dubai port ka samaysay dekadu wuxuu uu stamp ka dhigay oo sharciyeeyay inay Somaliland tahay meel xasilan inay tahay dal qawaaniin iyo sharci leh dal kala dambeeya dal wixii maalgashiga la sameeyaa aanay keenayn wax mushkilada arrintaasi guul aad u weyn bay u tahay shacabka ayaana leh waayo mar walba nabadgelyada iyo horumarka cidda faraha ku adkaystay soo dhaweysayga leh ninka waxa carsheynaya ama doonaya inuu wax kharibana kuwa la iraado naga joogayaga leh waxaan filayaa inay markaa mahad iyo tahniyada iyo kalsoonida faraha badan ee shacabku muujiyeen xukuumadda u muujiyeen aan uga mahad celino insha Allah ilaahay inoogu wado horumarka ballaaran aad iyo aad baad mahadsantahay